deeqdan oo ka kooban qalab isugu jira noocyo kala duwan ayaa waxaa cisbitaalka guud ee magaalada Ceerigaabo soo gaarsiiyay muwaadinka magaciisu yahay Maxamed Jaamac Afmakaahile oo ka mid ah qurba joogta reer Sanaag ee ku nool waddanka Imaaraadka Carabta waxaana qalabkan oo muddo kooban gacanta ugu jiray maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo badhasaabka gobolka Sanaag Cali Cabdi Hurre fagaaraha xarunta maamulka gobolka Sanaag ee magaalada Ceerigaabo si buuxda loogu wareejiyay maamulka cisbitaalka guud ee Ceerigaabo iyadoo ay goobjoog u yihiin maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur badhasaabka gobolka Sanaag Cali Cabdi Hurre madaxa guddida caafimaadka gobolka Sanaag Chief Caaqil Axmed Maxamed Xaashi maamulka cisbitaalka guud ee Ceerigaabo aqoon-yahanka iyo waliba muwaadinka alaabtan keenay waxaana munaasabadan ugu horeyn ka hadlay muwaadinka qalabkan keenay Maxamed Jaamac Afmakaahile xafilaya waxaad naqmo jeedee hadal badan galimaayo sida odayaasha ay u sheegeen carabta waxa tirada la shukra ala waajib waxaanad wax weeye anigu maanta aan Ceerigaabo joogo aad waxaan u jecelahay waa waajib saaran waxaan Ceerigaabo ku soo beeriyay sababtuna wax weeye laga yaabaa imka media aan ka hadlayo dad badan oo aan asxaab nahay ama school dayski ama ilaa malcamadihi Ceerigaabo aan hadee daawanayaan farriyer baan diraya waxaan leeyahay war asxaabo waynu sugnahay deegankii naga soo bixiyay deeguna wax weeye kii bilaashka ah iskuulka lahaa dhakhtarka lahaa danta caamka lahaa min personal hadda wax soo dirtay waxay personal baa u dirtay laakiin taayanu garanayna aan waxba leena weydiin jirin deegankii inaga soo celiya waxaan u jeclahay wuxuu sideedaba chartigu ama wax jira wax la yiraahdo relationship ma aha qof kasto banaan joogo ama local joogo lacag isticmaalo adigu ka warada doonto jeebka bay noo daayo relationship baa jira ee dadka macquulka ah ee kii dhakhtarka iyo kii educationka iyo qofka marka tiraado war iskuulkaas aan darsi buugaga uga baanahay oo ay dhab tahay wax weyn baad qabatay odayaasha iyo shacabkan waan u mahadnaqayaa sida qadarinta leh alaabtan ay iga gudoomeen ina qadariyeen iyaga laftooda mahadnaq bulan xaqiiqadii ku dheeraan maayo aad baan ku mahadnaqayaa fidiyaha u mahadnaqayaa odayaasha u mahadnaqayaa shacabka u mahadnaqayaa jasaakallahu khayr saa soo dhaweysay maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur halkan waxaan isugu xafiiska xarunta gobolka iyadoo goobjoog ka yahay gudoomiyaha gobolka iyo madax badan alaab deeqa oo keen Maxamed Jaamac magaca dheer Afmakaahile runtii alaabta oo aad iyo aad aanu mahad ballaaran u jeedinayno si wanaagsan oo faysa meesha uu soo talagalay oo buriirtii koobaad ama meesha muhiimka ah koobaad tahay isbitaalka weyn ee Ceerigaabo oo qaybta ugu wanaagsan la siinayo cidii soo bixisayna waxaan leenahay barakallahu fiikum hadday muslimin ahaayeen iyo haddii ay ahaayeen isagana runtii hawl badan baa ka soo gaadhay walaal fara badan dibadaynu u baxaynaa iyadaynu dul tegaynaa wax badan bay ku soo kordhisay gobolka Sanaag wayna anfacaysaa kharash badan baa ninkaa ka galay oo soo galay wuxuu ka soo raray Imaaraadka waxa ugu horeeyay hawlgalka baakinkii waxa ku xigay xamaalkii waxa ku xigay noorigii doonyaa waxa ku xigay dejintii customiska waxa ku xigay baabuurtii waxa ku xigay xamaalintii intaan soo tiriyay oo dhan wajeebkiisa waxaan leenahay ilaahay wax roon ha u bedelo nin kastoo muwaadina oo reer Ceerigaabo ahna waxaan leenahay inay ku daydaan muwaadinka dalkiisa xusuustay hawsha culus u galay ayaan rajaynaynaa kusimaha isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag ahana agaasimaha cisbitaalka guud ee Ceerigaabo ee qalabkan lagu wareejinayay Maxamed Cali Dhigane ayaan oo ka hadlaya afka caafimaadka gobolka degmada iyo qaranka baanka waxaan halkan kaga guddoonay Maxamed Jaamac wixii
itaalkiisa ahaa ee uu u keenay caafimaadka gobolka ee agab qalab hadday tahay miisas hadday tahay stationariga oo horteeda yaalla hadeeraad aragtaan hadduu yahay dhammaantood waanu ka guddoonnay waxaanu la leenahay jasaakaallah ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro aqoon-yahan axmed baanday gobolka cali cabdille maayarka ismaaciil xaaji nuur maxamed jaamac oo qalabkan keenay qalabkaas oo faa'iido badan u leh gobolka dadka dibadaha ku noolna waxaanu ka codsanaynaa inay ku daydaan maxamed oo sidaa uu qalabkaa wanaagsan u soo gaadhsiiyo gobolka ay sidaas oo kale ugu hagarbaxaan oo aanay ka fekerin shakhsiyad gaar ahaaneed laakiin ka fekeraan guud ugu dambayn badhasaabka gobolka Sanaag Cali Cabdi Hurre oo isaguna halkaa ka hadlayay ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa hanti qalabka aragtaan nooc kasta leh isaga ayaa ka hawlgalay oo shirkada ka soo qaaday in badanna daba socday inay hawshaas oo meel kale loo waday haddana wuxuu ku dadaalay in xaggeena ay soo marto ilaahayna uu ku guuleeyay waanti waxa oran karaa waxa weeye waxyaalaha ugu qiimo badan oo ahaa dadka dibadaha jira la oran karo waa wixii weynay uguna ballaarnaa oo dad badan iyo muxuu ahaa institutions badan oo muxuu ahaa anfacaya ayuu ruuxaantii inoo keenay muwaadinkaasi gobolkiisii iyo meeshiisii inuu mataqaanaa bal wax u qabto waxaynu ugu ducaynaynaa inuu ilaahay hawlaha kale uu ku jiro tii muxuu ahaa isaga uu gaarka u leeyahay iyo taa uu ummadaba maaragtay inuu ilaahay muxuu ahaa u fududeeyo ruuxaantii aad iyo aad baan muxuu ahaa u mahadnaqaynaa anigoo ku hadlaya magaca muxuu ahaa gobolka dadweynaha dhammaantiyo iyo maamul ahaanba waanu ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay ilaahayna hakaajisaa siiyo wax khayr qabana muxuu ahaa ilaahay ha ugu bedelo Abdullahi Hussein Darwish Odweyne News Ceeri Gaabo